heesta xigta ee aan qaadayo waxaa waaye heer saro shiisnoo beer daro qaab daro uma quura fil daro gardaro mataqaana idab daro ee gara gabadhaas waa garo magaceeda waa munnaa markii ugu dambeysay heestaas aan dhegeysanay waa la xamaasay magaceeda munnaa uma quuro xumaa iyadaa mudan ammaan bandere haye ayuu baad ma taqaana aniga he waa kibirtay nin kibiraad tahaye aniga he ilaahay baa codkayga sida ka dhigay fanaan maahi maxaa suu ka xanaajina aniga codkaaga ku dhifra no ma munaa waa hees waa dhegeysataa caad iska dhig adiniyo heer saro okay ma waxaa rabtaa sida gabdhaha tiktok heer saro shiisnoo beer daro gartaro mataqaana magarta waa heesaysaa meeshii fanaanka u dhigaysaa abduas maqaanaa caarsi joojiniyo والله وبالله أطل أوكي غير سرو شيسنو بردرو قابدرو ما تقارن إذا sida hore loo wada ogaa dagaalka ka dhaxeeya fanaan Sharma Boy iyo Ayub Carlo dagaalkaas oo ahaa noqday dagaal xitaa Justin meel xun gaara xitaa gaaro in Ayub Carlo oo u dalbado ama u adeegsado dhankaas iyo fanaanin oo dhanka raabka tiriso oo xitaa ku bixiya qarash fara badan oo ku bixi sida heestas loo soo saari lahaa ama heestas loogu garbaashi lahaa fanaan Sharma Boy heestasna waa la soo saaray ama waqti fara badan baa la geliyay waxaana waqtigaas galiyay ama dhankaas iyo lacagahaas faraha badan loo gacan galiyay sida la wada og yahay ama just ay waqti xaadirkan ama waqtiyadan dambe dhanka social media aad loogu soo dhaxwaday fanaankaas oo ahaa fanaan Funny Boy fanaankaas oo just waqtigii dambe ama maalmihii dambe ama isigana soo duubo muuqaal oo just ku raali gelinayo markii ay videogi ama heestii ay soo baxday heestaas iyada oo taal ilaa 3 days ilaa 2 days ayuu just isigana wuxuu sameeyay markii ay heestii in yar isdhaay dadkii badanaa ay commentiyo fara badan ee ku jafeen ama commentiyo aad u fara badan ay ku karbaasheen ayuu heestii just ka bacdi wuxuu soo sameeyay muuqaalkaas oo ahaa in uu ku raali gelinayo ama raali gelin buuxda oo ku bixinayo oo ku raali gelinayo fanaan Sharma Boy iyo teamkiisa marka taasna waxa la dhigi karaa waa wax just aad u qurux badan in uu raali gelin buuxdo ka bixiyo ama just oo raali gelsho qofkii aan la dagaalsaneen oo meel cad iskaga maagay ama dagaal cad oo ku maagay waxa la dhigi karaa taas waa waxa loo baahnaa in uu raali gelin baxsho mid qofkii markii hore soo adeegsaday ama qarashka faraha badnaa ku baxshay in la karbaasho ama fanaankaas karbaash fara badan loo geystay la wada ogaa youtuberkaas oo la wada yaqaan oo la